ساعة الوزير كل إمك دقيقة كهرة يسوق على المجالات هذا كم ذا وفتي مدحوينها waxaan ku weydiinanaa sir jaraa'id oo qolada xamar waliba ninka gaaf uu leeyahay ku qabtay immigration-ku wuxuu ku sheegay in wasiirka arrimaha gudaha masal waracade qoraal ka soo gaadhay oo ku dalbanayo ka soo codsaday in magaalada Hargeysa laga furo xarun baasaboor laga bixiyo baasaboorka Soomaaliya taasoo kaliftay baahi ay bulshada Soomaaliland qabto arinta maxaad ka oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa mucjisooyinka aynu had iyo jeer Soomaaliya ka maqlayno weeye marka hore gaafow wuxuu ka mid ahaa saraakiishii aan xukumayay wana ma aqaano nin xun maaha nin shibile wanaagsan buu ahaa askari shibile wanaagsan buu ahaa laakiin waxaan garanayaa meeshay ka socdaan arinta tani waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa runtii arintan dabada ka wado oo laga yaabo inuu isagu muxuu ahaayay u soo dhiibo waxaan la yaabanahay wax la biciidsada ma in Soomaaliya ama Xasan Sheekh maanta uu yiraahdo Somaliland baa waraaqay soo qortaa macali waracade sababtoo ah waxaynu ku naqaanaa been waxaynu ku naqaanaa cadaalad darro waxaynu ku naqaanaa qabyaalad ninkii shalay lahaa Somaliland baa shirkii Kismaayo ku jirto ka soo qayb gashay oo Somaliland baa kamid ah Soomaaliya ninkii lahaa inuu yiraahdo cali waracada waraaqay soo qorayna horta wax la biciidsan karo maaha waxaynu ku naqaano laakiin waxa kaliin doonay inaan sheego waxa weeye runtii ummadda Soomaaliya waa ummadani walaalnahay waa ummadaynu kala goonay waa ummadaynu darisnahay laakiin laba dawladood oo kala go'ay banu shay laata sanad kala maqanahay waxaan runtii uur xumaa in ummadda aynu dariska nahay inuu xukumaan dad noocaas oo kala oo waxaan arkay shalayto isagoo oo jinaasadii dadkii ay saaxiibada ahaayeen ku dhintay dagaaladii u sujuudaya kuwii dadkiisa madaxda u ahaana jinaasadooda ku qoslayeen arkayay horta inta aanu oranay in warcada wax soo qoray waxaan jinaa su'aal weydiiyo odaygu labada diimood imka lagu tirinayo inuu ummadiisa u sheego anagu ma baahnina waanu garanaynaa talabaad waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliya ee aanu dariska nahay inaanay u dul qaadan mas'uul aanay dooran xoog ku haysta oo muxuu ahaayay dhibka iyo dilka iyo balanbalka Soomaaliya haysta u sababa beenta iyo diimaha badan islaam baynankii loo sheegay hooyo hebel diima badan ay tiri madaxweyne diima badan maaha madaxweyne ummad lagu aamini karo waxaan ugu baaqayaa si dalkaas u dago ummadaas inay hesho hoggaan cadaali ah inay iska ridaan anaguna runtii waxaan halkan uga soo jeediyo wax kasta oo ay iskaga qaadayaan dulmiga iyo dhibaatada inaanu hadaan nahay Soomaaliland aanu diyaar u nahay shacabka reer Soomaaliya hiiliyo hobaan la garab taaganahay waxaan leeyahay arintaas waa been raqiisa oo la abuuray waxaan leenahay baasaboor Somaliland leedahay kaasaan ku taraafalaa meel walba ku tagnaa dadka iyaguna baasaboor kale oo fara badan oo adduunyada lagu tago kaayagaba hadii labada la eego sharaf badan oo meelaha qaarkood Yurub iyo Ameerika markaad eegto waxa ku sharaf badan ka Somaliland baa ku sharaf badan hadii iyagu u baahan yihiin waynu weydiisan karaan laakiin anu kooda uma baahnin waana dacaayad raqiis ah oo ay sameeyay ninka horjoogaha waa maamulka waxaan ahaa anagu markaan Soomaaliya joogay macallimiintii waaweynada waxaan ahaa intelligence kan kamid ahaa wax bartay ardayda imka u joogta Soomaaliya ee security oo kamid ah markaa waxaan filayaa in warqada ay dhabdhabeen ardaydii oo si xun loo tababaray aan meesha kaga nimid ee security ahaan jirtay waan filayaa in iyagu farsameeyay waxaan naf lahayn mid xageena ka timid ma